بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله وحين كبر يينا إن إلهي سبحانه وتعالى عرورتي إلمها إلهي نوها جاجيو إلهينا سبحانه وتعالى وكدقه هو إشان كفر حظه أيان الله سبحانه وتعالى كبر يينا وحن الله كبر يينا ميل والبين جو الله نقبل باديو إن كان حنوصا عفما الله سيه كان الدين تقبل إلهي سبحانه وتعالى دين الله كجده الله سبحانه وتعالى وحين كبر ينا ودك الأمن استقرار الله النصية إلهي سبحانه وتعالى مصلحة الله دحدقه صومالي قلوبته الله يسكن عزينا شرفتنا الله نوسع عليه إلهي وحين كبر ينا دينتنا الله نقبل بادي ميل والباقي نجوجنه بان إلهي سبحانه وتعالى كبر يا أنت أسكت قال وحين نجوجنا قرون كميدا قرون هذا كبد الوعي ياره حافظ أي وبضلنا هي أن دجنا هي وحن ربعنا الله قيب صدق والدينته سيبا خاصة وحن ربا آبياشا أي رسالة ذي كسر عطار وحن أرون لها آبيال إلهي سبحانه وتعالى الله يدين بركة أنا جايين كوا أسكمي بيننا هاي إلهي سبحانه وتعالى مسؤولية دؤون نصارى وعروتها نجساري أي نقيب كوضا نقلنا وأيوه ويلش وباهين رجب وباهين يكون ضيدان رجب وباهين وحال الربا إن أرنكاس مسؤولية الله يدين صاري إن القادتان haddii aad ahaan lahaydeen laba famil oo isla jooga oo wada nool ama haddii ahaan lahayd famil kala tagay inaad maaragtay ilmaha iyo mas'uuliyadda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku saaray aad qaybtiisa aad qaadatid yeysan noqonin sida in badan ay dhacda haddii ninku reerka uu furo ama ay gabadha kala tagaan carruurtana waa la furaan waxaa la rabaa hantida aad haysataan ilmihiina galiya isaga ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala birin idinku badbaadinaya meesha loo socdo Ilaahay aakhira ماركتي هورتي سأنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يري قفكم مركو ودنتو وحكليه وأنفعيا إني تاي ولد صالح دعينا يا إلهي سبحانه وتعالى أبريا تاس أيها هنتي بدن كقيمة بدن هذا نصور نقوله وحربا بياشو أما إلمها والدكو أي صوت ريان أو إليهين اسكتوا عيارة إليهين خطرت هذا الإبكي هذا لا هي waxaa dhacday qadiyada dhacday waxay tahay oo aan rabo inaan walaalaha la qaybsado inay tahay ilmo 70% aynu nahay dadka naga Soomaaliyeed inta kale jinsiyada ay kala tahay ayaa saddex dhalinyaro oo wada socda ayaa garoonka soo wada galay ilmihii oo ciyaarayay 70kaas Soomaalida ay ka koobanahay waxa ka jooga hal waalid oo kaliya ayaa la socday carruurtiisa soo raacay markii saddexdaas qof oo ahaa Soomaali iyo jinsiyada isku dhaxsan ay yimaadeen carruurtiiba u yimaadeen ilmihiina marka waxay tusiyeen dhaqaale iyo lacag tiro badan bay soo bixiyeen waxba ku qarsan lacagtaas la siinaya ilmaha horay baan u maqalnay horay bay ciidamada amniga u sheegeen sababtoo ah dadka ilaahay carruurta Allah noo hagaajiyo shaydaanka nooga kaxaystay oo maanta waxyaalaha Allah uu saraalika in iibinaya waxa ay raadsadaan oo ay raadiyaan xoog u raadsadaan si uu heli lahayn ilmo yar ay isticmaalaan marka carruurtii haddii aabihii oo mas'uuliyadda koowaad ahayd iyo hooyadii ay meesha ay ka maqan yihiin aysa goobta aysa joogin maxaad u maleynaysaa ilmo yar oo lacag badan la tusiyay la yaabi ma aniga waxaan la kulmay kuwa da'dooda intaas ka weyn tahay 16 17 jiro markaan la fariistay aan iraahday adeer arrinkaani diintu waa qadantahay maxaa ku kalifay adeer waxa la ii sheegay buu yiri inaan guriga gadanayo adeer waxa la ii sheegay buu yiri inaan taajir noqonayo maxaad u maleynaysaa kuwa yar oo aan maaragtay aqligaas aan lahayn sababtoo ah 12 jiro 13 jiro ayaynu arkaynaa arrinka labaad oo rabo walaalaha aan ku baraarujiyo waxa ay tahay ilmaha 9 fiidnimo ama 8 fiidnimo banaanka joogo waalidkiina uu ammaan ku qabo guryahooda inay joogan arrinkaasna ha ka taxadaraan oo waxa la rabaa carruurta 9 fiidnimo maqan 11 jir 12 jir 13 jir banaanka ka taagan sidee baad amni ku heli kartaa adigu aad meesha guriga ku joogi kartaa ma aha meelaha aynu joogno waa meelo khatarteeda iyo dhibaatadeeda dhibkeeda u badan yahay waxaan rabaa arrinkaasna inaan isku xilqaano oo aynu ilmaha ka wada hayno ilaahna waxaan ka baryaynaa carruurtanada Allah noo xifdiyo Allah noo ilaaliyo ilaahay Allah noo xifdiyo Allah noo ilaaliyo kuwa ishanada ku farxadeenayso Allah naga dhigo inta uu shaydaanku uu ka haystana Allah waxaan ooga baryayaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala diinta iyo wanaagga iyo kalgaceelkiisa Allah uu galiyo waalidka murugaysan oo dibkaas ku dhacayna ilaahay waxaan ka baryayaa murugada Allah ugu bedelo farxad baan Allah subxaanahu wa ta'aala ka baryayaa waxaan isku dardaarmaynaa meel walba aynu joogno ilaahay subxaanahu wa ta'aala cabsidiisa waayo
ilmahaas mas'uuliyadda gacanta alla noo geliyey qof walba hanti waa la helayaa laakiin hantida rasmiga waa carruurta waay ilmahana waxaan u doonaynaa inay berito marka aynu dhimanno inay noo soo duceeyaan sida nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiiskiisu ku leeyahay qofka waxa anfacaya waxa ka mid ah xadiiska waladun saalihun yad'u lahu ilmo ku duceynaya berri maaleeda uga baahi badan tahay markaad qabriga ku jirtid ma jirto walaalayaal hanti waa la heli karaa laakiin carruurta uu shaydaan ka haystay waxa la heli karaa ma jirto waxaan ku soo gabagabeynayaa waalid walba oo dhageysanaya sujuudaha loogu duceeyo carruurta sujuuda carruur ugu duceeyo oo ilmaha laga daayo yaan la habaarin waanu aragnay dad intee habaareen habaarku ku baa waayo waalidka ducadiisu waa mustajaaba arrinkaasna waa isku dardaarmaynaa biidni illaahi subxaanahu wa tacaala ilaahayna waxaynu ka baryaynaa akhiiran soomaali عزيزي شرفت الله نوسع عليه قرن مضنا إلهي سبحانه وتعالى الله نومي